بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله marka ugu horeysa Puntland TV waan salaamayaa salaanka bacdi taani kaga warramo magaalada Garowe shaqooyin badan baa ka socda waxaa ka socota furista dareeriye iyo wadooyin xiran saarista wajidad cusub qurxinta magaalada iyo ka qayb qaadashada bilicda soo celinteeda iyo wixii wax ku soo celinaya diyaar garow wadooyin cusub oo World Bankigu dhaqaalahooda ay bixinayaan iyada laftigeeda la hirgelinayo haddaad wax iga weydiisay magaalada shaqooyinka ka socda nadaafadii baa garabtaalo ka dhinac socota shaqooyinka ballaaran baa magaalada iyo baaxaddeeda ka socota dakhli ururintii baa ka socota shaqooyinka ka socda magaalada caynka weeye haddaan in yar ka xuso bilicda magaalada waad aragteen oo dariiqyada wadooyinka waa la qaaday oo waxaanu qaadnaa wixii laamiga magaalada bilicda u keenaya qaybo kamid ah waanu maray oo waanu ka qaadnay balbalooyinkii iyo jaqafyadii iyo sandaqadihii iyo wixii hor yiilay qaybo waa noo calaamadsan yihiin oo waanu calaamadinay oo waxaanu jecelnahay ayaga laftigooda inaanu magaalada labada guriga iyo laamiga ama guriga iyo wadooyinka wax u dhaxeeya inaanu ka qaadno si aan u soo celino bilicda iyo caasimadeeda iyo quruxdeedii waxaa jira dariiqyada jilcadaha ee magaalada marana waxaa ka dhex socda oo aanu ka dhex wadnaa inaanu wado u qaadno si aanu wadooyinka u banayno xariga arigii uga qaadno sandaqadaha la dhigay uga qaadno balbalooyinka uga qaadno ku helno dariiqyada xiran oo ku xaqiijino markaan ka bacdi intaa ku sameynana meelaha jilcadayaasha laftigooda iyo dariiqyada aanu marana inaanu ku sameyno haddii Allah awood la noo ogolaado dhirayntii si magaaladu Garowe oo cusub oo green loo helo insha Allah bi'inillaahi al-kariim magaalada siyaalaha noocaas waa ka socota wadooyinka iyagii hore oo noo jirayna hadda inaanu sidaa u banaysano kuwa cusub oo haatan jira hadda 4 wado oo World Bank ku dhaqaalaha ay bixiyeenna waxay noqonayaan kuwa ka gadisan wadooyinkii hore ee magaalada jiray kuwa yeesha drainage-kii biyuhu qaadayeen kuwa yeesha meeshii dadku marayeen sida wadooyinka caalamka ay u samaystaan kuwa lamaca insha Allah bi'inillaahi kariim bay noqon doonaan oo ka duwan oo kuwa iyaga dambana mustaqbalku aanu kaga dayan doono inaanu iyaga laftigooda kuwa haddaanu samaynayno kuwa la saan qaada caalamka iyo adduunka inay noqdaan magaalada qaybkaas ka socda waxaa mahadsan dabcan wadooyinkan meelaha laga dhisi doono iyo waxyaabaha ay kaga duwanaan doonaan iyo ballarkooda iyo qaabka ay yihiin iyo horumarka magaalada laga filayo inay kusoo kordhiyo hataa ka wareegto afartaas wado waxa weeyaan wada waxaa la yiraahdaa waagi hore la oran jiray global laakiin waqtiga dambe waxaa loo bixiyay General Mursalaad wadana waxaa la yiraahdaa Sagal waxay isku xiraysaa Engineer Jimcaale iyo Sheekh Cabdul Qaadir waagi hore shaariqa la oran jiray waagi dambe Sheekh Cabdul Qaadir la yiraahdo loo bixiyay wadana waa wadadan waagi hore la oran jiray Al Nasr laakiin hadda loo bixiyay Sheekh Cabdisalaan oo meesha haatan ay ka leexato Al Nasr ka bilaabato Sheekh Cabdisalaan iyo jidka Sodonka wadana markii magaalada koonaha dhinaca bari looga baxo oo meesha halka waara guryaha dadka looga dhisay IDPS-yada u laabata way noqonaysaa haddii Allah awood la ogolaado wadooyinkaasina waxay noqonayaan oo kuwa horta sanca cusub waxay noqonayaan kuwa oo la mid ah wadooyinka caalamka ka jira hadda wadooyinka noocaasina waxa ay noqon doonaan ama waxa laga filayaa inay bilicda caasimadda qayb ka noqdaan inay kaabayaasha dhaqaalaha ee degmadu leedahay qayb ka qaataan ama Puntland guud ahaan waxa laga filayana hadde waa horumar soo kordhay oo magaalada ku fiday oo bilicdii iyo qashinkii magaalada bilicdeeda ku soo noqotay oo dadkii guryaha deganaa maanta ka faa'iideystaan oo meherado ganacsi waxbarashooyin waxyaalo kala gedisan loo adeegsado oo dadkii noloshoodii markaas iyada laftigooda ay halkaa uga soo baxdo waxaa laga filayaa isu socod dhow dariiqyadii iyo biyo fariisidkii lagaga badbaado haddee horumarka ay soo kordhayaanina waa mid
cid walba u muuqato. waxaana taa daliil u ah dadka nasiibka u helay inay wadooyinka maraan. wadartina magaalada balbalooyin iyo sandaqado iyo barkado iyo bulaacado dadkaasi guryaha ay ka hor dhisteen baanu ka duminay. waxaa la dumiyey guryo baa la dumiyey. haddee wax dhib la-aan oo bulshada aan aada ugaga mahad celinayno reer Garowe iyo kuwa wadooyinka laftigooda nasiibka u helay sida quruxda iyo sharafta karaamada leh ay noogala qayb qaateen in ay hirgelino wadooyinkaas hantidoodii nala jajabiyey. iyagana waxaan leenahay miisaanka aakhira Allah uga daro aan uga mahad celinayno. taas ay waxaa laga dheehan karaa horumarka ku jira, danta ku jirta, macaanka iyo filashada laga filanaya. tahay gudoomiye dabcan kuwan wadooyinka afursan maxaa ku kalifay in dabcan inay hadda qaadaan itilaabadas? waxaa nagu kalifay mar haddaanu anagu xil saaranahay inaanu bilicda caasimadda soo celino, in dariiq xiran la waayo, in dariiqyada tan iyo xariyaariyada iyo qashinka iyo jajabka iyo dhagaxa iyo ciidda guryaha la dhistay looga tago ka qaadno. xilwaajibaadka dowladda hoose u xil saaran tahay mas'uuliyadana saaran bay ka mid tahay. waxaanu xaqiijinaynaa himilada bulshada iyadoo naga filanayso. waxaanu xaqiijinaynaa in aanu xilgudashadayada aanu muujino iyo dareenkayaga. waxaanu muujinaynaa door naga maqan oo caasimadda ka maqan oo bilicda lagu heli karo inay tahay dariiqyada qashinka iyo xero ariyada iyo laga dhisay balbalooyinkana in aanu ku bedelano wixii magaalada dheehi lahaa bilicda u ahaa oo geedihii ku beerno. sidaa aawadeed waxaanu u aragnay muhiimad ay leedahay oo naga maqan in ay tahay oo aan noogu soo kordhin karo horumarka noocadaasna aanu ka heli karno oo geedaha iyaga markaanu ku dhirayno aanu kaga maarmi doono jaqafyadii iyo balbalooyinkii dadka loo oran jiray waanu harsanaynaa. taasaa waxayna tusaysaa inaanu insha allah biidni illahi alkariim aanu dariiqyada furno waanu ku xaqiijinaynaa dariiq xiran in laga waayo magaalada. waa tahay fariinta halkan aad uga dirsid shacabka magaalada Garowe maxay tahay hooyo? shacabkayga waxaan u dirayaa fariimo badan oo ishuwan. marka ugu horeysa shacabka waa u mahad celinaynaa shaqooyinka ballaaran ee ay nala hayaan. waxaan horta marka guud ahaan shacabka reer Puntland gaar ahaan reer Garowe waxaan leeyahay ha la ilaashado amniga iyo midnimada, ha lagala shaqeeyo dowladda, ha lagala shaqeeyo maamulka gobolka iyo midka degmada, dowladda dhexe, cid waliba meesha ay joogto inay mas'uul ka tahay ha u aragto in la iska wada xilsaaro. qodobka labaad oo aan farayaa waxay tahay dadka inaynu ilaashano waxaynu magaalooyinka kaga duwanahay in la ilaaliyo wadooyinka, cid walibana xil iska saarto. xaqa shaaraca oo wadadu xaqa ay leedahay nabigeena ina kala dardaarmayna cid waliba dardaaranka nabiga fuliso. dariiqyadana xaqooda la siiyo, guri walbana la dhireeyo oo geeda lagu beero oo la waraabiyo oo aan lagu soo durkine dariiqu inuu dan inoo yahay halbowlihiina inoo yahay ayadana la wada arko. qodobka saddexaad shacabka reer Garowe waxaan ugu baaqaynaa ama dadka guud ahaan reer Puntland iyo Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa dadka reer Garowe dhul aan la xaqiijin dokumentigiisa inuu dokumenti leeyahay inaan cidina gadan karin. waxaan ugu baaqaynaa nimanka dulaalada dhulka gada in ay noqdaaniin dadka dulaaleyda oo dhulka gadaya inay iska soo diiwaan gashaaniin. inaanu shaqada dulaalka xilwaajibaadka saaran kan dowladda hoose saaran kan dhulka gadanaya waxaynu wada xaqiijinay oo ka wada shaqeynay inay noqoto si amnigeena aynu u sugno, horumarkii magaaladeena aynu u sugno. qofku wuxuu gadanayana wax la hubo loo gado oo kan wax qaadanayana wuxuu leeyahay gato ee ayan dhicin khaladaad noocadaasi qofku wuxuusan lahayn inuu gato, qofkuna hantidiisii lagagala wareego waxaan caddayn inay noqoto. taasna shacabka inayan dulaaladayada inayan cid aan sharciga ka haysan oo dowladda hoose register ka ahayn inayan dhulka u gadan, aysan u dirsan inay dhul soo gadaan ama dibadda jooga ama gudaha jooga. dulaalada dhulka gadana sidaasaan leeyahay. cagafyada waa dhaweyd ganaxyo baanu kusoo rognay. hadda sidii hore ma aha, waxbaa iska bedelay. waana la wada qaadan doonaaye cagaf aan ogolaansho u haysan dhul mana geli kadho, shaqana kama qaban kadho. ciddii doonaysa shaqo inay soo hesho qabato, annagu inay xuquuq helaanin shaqo helaanin waanu jecelnahay, laakiin waa inayna soo mariyaanin si aanu u xaqiijino oo ula socono waxa meesha laga qabanayo. ayadana inay tahay cagaftii sharciyadda u hoggaansan weydena sharcigaa la marinayaa. 2,000 oo ganaax baa u qoran,
oo guddiga hore loo soo saaray. hadda iyadana sidaasa baan iyagana ugu baaqaynaa. guud ahaan waxaan kaloo u yeeraynaa injineerada magaalada wax ka dhisa. waxaan cilaaminaynaa fadhi ay leeyihiin injineeradu si degmada iyo injineeradu isugu xirmaaniin, u diiwaangelino si aan uga wada socno waxa la dhisayo. oo ninka injineerka ahi dhul aan sharciyad lahayn oo aan hubsiyo dokumentigiisa uusan u dhamaystirayn inaan nin injineera dhisi karin. inaanu la ogaano dariiqyada laftigooda xaqi ma yahay, dariiqan booska iyo guri la dhisi karaa iyo boos dhisma laga bilaabi karo aan dowladda hoose fasixina inuusan jirin ayaanu shacabka iyaga ku bogaadinayna ugu baaqaynaa. ciddii lagu helo waxay mudan doontaa ganaax, waxay mudan doontaa ciqaab, waxay mudan doontaa wixii sharciyadu noo ogoshahay haddii allah wada la ogolaado. shacabkana waxaan ugu baaqaynaa oo mar labaad iyo mar saddexaad ugu baaqayaa wada jirka in la ilaaliyo, midnimada in la ilaaliyo, amniga in laga wada shaqeeyo, horumarka la garab istaago. wixii haatan amni xumo ina ku wada ama mid gudood ha noqdo ama mid dibadood ha noqotona in la iska kaashado, gacmaha inaynu isqabsano, maamulkeenana garab taagnaano. hiil iyo hoo wixii aynu kaga baahdeen sidii layna kaga bartay. hadda midnimadii iyo midnimo ummad Soomaaliyeed inaynu sidaynu horey u baadigooba jiray u raadino haatana ku hayno insha Allah biidnillahi kariim. shacabkaygana saasaan ugu baaqayaa. aadna waxaan uga mahad celinayaa idaacadaha iyaga, telefishinada iyada sida hagar la-aanta noola shaqeeya iyagoo gaarsiinaya adeega iyaga bulshada iyo midka aan ugu aadanahay